السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan salaamaynaa dhammaan ummadda dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ku nool North America. Waxaan halka ku fadhinaa aniga iyo ugaas Maxamuud oo adoo taqaanaan Haaguf. Waxaana laba nin oo macnaha guddiga fulinta ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya jaaliyada ku dhaqan North America. Maanta waxaan meeshan u soo fadhiisanay inaan macnaha idin cilaamino inuu jiro shir weyn oo ballaaran oo isugu imanayaan dhammaan qowmiyadaha Itoobiya oo dhan. kuwaas oo ay ka soo qayb gali doonaan safaaradda Itoobiya oo fadhida Mareykanka. Marka waxaan idin sheegaynaa in shirkaas si buuxda aan uga soo wada qayb galo dhammaan jaaliyada, dhalinyarada, odayaasha, dumarka iyo inta kale ee macnaha maamulka ka tirsan ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya matasha jaaliyada DDS ay ku nool North America. Marka hadda waxaan idin sheegaynaa xaggee ka dhacaysa maalintu waa maalinta Sabtida soo socota oo taariikhdu ay tahay bisha shanaad 12keeda. saacadu waa 4 galabnimo ayay bilaamaysaa, laakiin waxa la imanayaa imaatinka qof walba waxa laga rabaa 3 galabnimo inuu yimaado meesha. waxay dhamaanaysaa 8 fiidnimo. marka waxaan u sheegaynaa dhammaan jaaliyada inay qowmiyadaha 9 qowmiyadood ay ka soo wada qayb galayaan, halkaana la doonayo in cid waliba ay ku muujiso awoodeeda iyo dhaqankeeda. marka Soomaalida waxaan ka codsanaynaa in muxuu ahayday ay soo muujiso awoodeeda iyo dhaqankeennaba. waxay nagala soo qayb galaysa fanaanadeennii caanka ahayd oo qaybta dhaqankii noo matalaysa Nimco Wadani ama Nimco Dareen. marka haddana waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay ugaaska. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka koowaad waxaan leeyahay Faarax aan Xuseen Furre saaxiibkay oo dhawaan wadankii ka soo noqday 4 biloodna ku maqnaa. soo dhawo, welcome back to Minnesota aan leeyahay. marka labaad waa sida uu Faarax u sheegay, waxaa sharaf noo ah in aanu jaaliyada qurbo joogta Soomaalida Itoobiya ee ku nool nawaaxiga Minnesota iyo daafaheeda in ay nagala soo qayb galaan xaflad ay hoos gareynayso martigelyadeeda ay qabatay safaaradda Ethiopian Democratic Republic oo fadhida Washington DC oo hogaaminayo His Excellency Ambassador Kasa Takla Burhan. waxay nala joogaan haddii alla idmo bisha May oo aynu ku jiro 12keeda, waa Sabtida hadda soo socota. saacaddana waa siduu Faarax u sheegay waa 4 galabnimo. waxaan isu imanaynaa 3:15. waxaanan jecelahay dhammaan in xubnaha jaaliyadda inay ogeysiiskaas ay tixgelintiisa lahaadaan, martigelyada iyo soo dhaweyntaana ay nagala soo qayb galaan haddii alla idmo. السلام عليكم. أنا سليكا سمي سليكا محمد بالنيال يالله من الصورة من يابلس ألن نفلقل سسباتشين ميت وألف من الصورة من يابلس سسباتشين نوريال إننا متأشون نفلقالن إننا من دناشو كلهم الصومالي إثيوبيا كلهم نفلقالن السلام إننا متأفلقالن በጣም ደስ ይላለን እና እንፈልጋለን። አመሰግናለን ሁላችን።